magacaygu waa xasan maxamuud shire waxaa ka mid ahay dhalinta gobolka Gaardafo maanta waxa halka u nimi waxaana dhalinyarada gobolada Bari iyo Gaardafo waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin xal dhacday oo gudoomiyihii dhalinyarada danwadaag oo xal loo geystay oo xabsiga loo taxaabay inaan ka hadalno oo arintaas noqonaado arrin aad iyo aad ka fajacanay haddaan nahay dhalinyarada gobolada Bari iyo Gaardafo xabsiga loo geystay gudoomiyaha adba waxaan waana cambaareenna gudoomiyaha Cabdicasiis Faarax Xaaji Cali Saciid baa la dhahaa waa gudoomiyaha danwadaag intaas oo dhimay warbaahinta inaan cambaareyno xabsiga loola kacay gudoomiyaha danwadaag marka iyo xabsiga kula kacay si ala socono maamulka gobolka Bari waa xiray ciidamada gobolka Bari ahay ciidankii xabsiga u geystay gudoomiyaha marka sababta maxaa idin ku sheegay wallahi hadda sababta wali ma hayno laakiin dhalintu waxa jirtay cabaaradan inay dhibaato haystay oo shaqo la'aan iyo waxa ay ka wada hadlayeen jimcadu waxa jirtay meel ay ku wada shirayeen oo shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka kaga hadlayeen in dhalinta shirkaasi la fashiliyay oo maamulka gobolka Bari ciidankeena oo dhalintii qaar kamid ah halkaasi tacaddi loo geystay dhalintuna aragtidooda soo bandhigayeen oo waxay qabaan iyo baahidooda ka wada hadlayeen iyo wax dantooda ah walaal maxaa kamid ah marka waxyaabaha sida gaarka diiradda u saareen dhalintu walaal waxa kamid ah waxyaalaha ka wada hadlayaan dad ku sheego waxay shaqo la'aanta ugu weyn walaal iyo dhalinta gobolka Bari malaayiin dhalinyaro jirto oo shaqo la'aan hayso oo wax jaamacadaha ka baxay oo hadda wax shaqo ahayn sida aad airborka kale si qaabka loo qaybsan lahaa iyo qaabka ay wax u doonaan u raadsan lahaayeen bay dhalinta ka hadlayo cidna mucaarad kuma ahayn cid mucaarad ma taageereen walaal dhalinta waa garta maxaa keenay markii in dawladdu ay fargelin ku sameyso oo shirkiina ay horjoogsato dhalinta walaal dad si kale dawladdu u fahamtay oo waxay moodo dhalintu inay kacdoon wadaan walaal noo wax kacdoon ma wadno inna taageermayno nin shakhsiyaad gaarna ma taageersin anagu waxa ka shaqeynaa horumarka bulshada wax walba ka shaqeynaa dhalintu meel walba haddaan maanta u nahay inaan dawladda ama ka soo horjeeso muddo ka soo horjeeso diyaar waxaan u nahay inaan dawladda la shaqeyno mar walba waxu taagannahay midowga dhalinyarada iyo horumarka dalka iyo dadka anagu cidna mucaad kuma inna taageermayno horumarka ka hadlayna iyo shaqada iyo qaabka u heli lahayn inna ma baarin walaal waa garta marka suurtagal ma tahay in idinka laftigiina qaab siyaasad ahaan dhalintiina in fikirkiina in dad siyaasiyiin oo kale in ay idin adeegsan karaan ama ay idin adeegsanayeen wala maxamed hadda waa ku cadeynaya horena waa cadeyn anaga cid mucaarad ay cid siyaasiyiin oo naga dameysay oo aragtideeda waday message-in anaga ayahay ka hadlayna hadaan Gaardafo iyo Bari shaqada iyo waxyaalaha danna aan ka wada hadlaynay iyo qaabka shaqooyin ku heli karno iyo qaabka shaqooyin dhalinta ugu sameyn karno in cid siyaasiyo waxa weeye anagu riixaysa iyo cid taageerino anagu walaal horumarka shaqeynaa diyaar u nahay